muftigii Nabadenta ee hogaaminayay Garay Garaad Cali Garaad ayaa maanta si weyn loogu soo dhaweeyay deegaanka Dhilaalo kadib markii ay martiqaad rasmi ah ka heleen cuqaasha iyo waxgaradka deegaanka Dhilaalo. Waftiga garaadku hogaaminayay ayaa kulan balaaran la qaatay qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool deegaanka Dhilaalo iyagoo halkan uga duceeyay. inta kadib waftiga waxaa loo galbiyay guryaha martida ee loogu talagalay waftiga iyagoo halkaas si weyn loogu soo riyeeyay. waxaana halkan ku soo dhaweeyay waftiga horeyntii ka hadlay aqal Jimcaale Cabdi Jaamac Xalac oo ah aqalka beesha. sidoo kale halkan waxaa ka hadlay qaar kamid ah waxgaradka iyo odayaasha deegaanka oo waftiga soo dhaweeyay. waxaana waxgaradka deegaanku ay Dhilaalo ay sheegeen in kulankan uu la xiriiro sidii uga qayb qaadan lahaayeen heshiisiinta labada beelood iyagoo baaq nabadeedna halkan uga diray. ilaahay baa iska leh waxaanu deegaanka Dhilaalo ku soo dhaweynaynaa ergada nabadeed u soo timi beelaha walaalaha ee mashaqadu dhex martay hagar iyo hayaag ee uu hogaaminayo xurmada Garaad Jaamac Garaad Cali. aan leenahay ilaahay hawsha aad ku shuqlan tihiin Allah idin fududeeyo. inta haddaan ka gudbo waxaan ilaahay uga baryayaa dadkaas dad isdhalay oo walaalo ah oo casaba ah bay ahaayeen ilaahay in beerkooda barcad isu mariyo. waxaan kaloo dadka beelweynta dhulbahantay ee deegaamada SOMALI dega aan ka codsanaynaa in arinta loo kaco oo aan isimada qore lagu eegin oo dadku maaha dad waalan oo cidii u tagtaba labada qol xabad iskala daalise ceegaag la tago la soo fadhiisto laga soo sheekeeyo dadka la soo xoog wareysto waxay tabanayaan la weydiiyo dadku fadhiga ka kaco la yiraahdo ismadii aan la oran ismadii maxay ay ku maqan yihiin oo soo saareen hadhowtana markay in yaro shaydaan oo qorin badan wata wax dila la yiraahdo awal bay ismadii baa la eeday wax shaqeynaya maaha. dadku deegaamada jooga way soo naqaanaa khaasatan waxaan la hadlayaa nimankan Axmed Garaad haddaydan ninku wax ka tagin haddaan reer hagar wax ka tagin oo Axmed Garaad wax ka tagin cidna wax ka tagin mayso. fadhiga ha laga kaco hal la aada meesha yaan nimanka la qalaynin yaan la oran halka reer hebel baa fadhiya ninkii ceeg tagay imika hayaag dili maayo ninkii magacay tagana ragoo dhaatay reer hagar dili maayo waa dadkii uu naqaanay dadka hadii la godoomiyo way godoomayaan. fadhiga ha laga kaco bari wixii laga bilaabo labada meelood baa la maro. ilaahayna waxaan uga baryaynaa waftiga garaadku wato ilaahay inuu u sakhra hawsha ducada garaadkana waanu gudoominay. wassalaamu calaykum. aniga oo ku hadlaya degmada Dhilaalo afkeeda waxaanu idinku soo dhaweynaynaa gamca furan iyo qalbi fayow iyo jacayl maskaxeed yaanu idinku soo dhaweynaynaa ku soo dhawaada. waxaan sharaf noo ah inaan noo soo tacjiisheen oo idinku oo hawl haya na ikraamteen oo taraag dheer noo soo gasheen annagoo idinka codsanay duco iyo araggeena iyo isbarashadeenna inaad nala kulantaan aad iyo aad baanu idinku mahadnaqaynaa. ilaahay baa mahad leh sharaf baad mudan tihiin. waxaan uga gudbayaa ceelkan waataanu markii hore oo shalay garaadada iyo uga cabanadoo nidhi ceelka garaad kama ducayn Garaad Cabdiqani waa ugu dambeeyey. sidaa darteed haddaad noo ajiibteen oo maanta inta oo isina saddex garaad iyo ugaaskuba iska daba duceeyeen iyo odaya suldaanku waa noo harsiye ilaahay annakana hanoo aqbalo idinkana ilaahay miisaanka xasanaadka ha idinku daro. waxaa weeye ceelkaa waa ceelkan idiin sheegaynay ilaahay baa ku lib leh waa ceel nabadgeliyo weli qof daqar laf cadaatay kama gaadhin ilaahayna ajalna qofku lagu sawaybaa ilaahay rabbiga qaadirka inagama keenin. waa iska barwaaqaysan waa il burqanaysu nooleeyahado baraaga ma cabno sidaanu ceelasha u cabaynay baraaguhu daayeeraysan wax u galayaan bay iska dhamaadaan. waa ceel barwaaqo aad iyo aad runtii waxaan beesha dhulbahante ugu diraynaa baaq annaga oo beesha mahad aadana in arintaa loo kaco arintaa inaan la isku halayn sidii garaadadu tilmaantii aadna siiseen in qof waliba isu taago in
in aan lala kala safanin inaan lala kala xamanin وأنكو إمك ولي خاصة هنا أنكو مركا لا هي تتكيجن إمك هالكن جنبها نشوجا صلي لبض الدرف كجبرية نكو فدنا إلهي وحنا كبرينا إنه إلهي نجاب اختي إلهي ونجاب اختي إلهي ونجاب اختي وحنا وصود ويننا وكل يلابا وجوري جوديمي وأنجوري كله شوجين اسم ماذا وقاشة نجرباتك ولماذا usoo guntatay hawshii loo igmaday laa shukra cala alwaajib baa la yidhi waa hawshoodii way u guntadeen ilaahay ha u fududeey ilaahay ha u fududeey ilaahay aqbal wanaagsan ha siiyo ilaahay labada geesoodba ha u sakhiro labadaa intaasaan kaga gudbayaa waxaan tacsi tiiraanya leh u diraynaa oo haddaannu nahay beesha mahad aadan ama beelweynta dhulbahantaba madaxweyne ku-xigeenkii qaaliga inagu ahaa maxamed cabdi xaashi naxariistii janna allah ka waraabiyo kullu nafsin daqiiqata almowt baa la yidhi cid kastaaba mowdka way dhadhaminaysaa ilaahay naxariistii janna ha ka waraabiyo ilaahay qabriga ha u nuuro dhammaanteenba samir iyo iimaan allah inaga siiyo khaasatan eheladii uu ka tegey samir iyo iimaan allah ka siiyo intaa dabadeed waxaan baaq u diraynaa haddaannu nahay beesha mahad aadan labadaa beelood ee walaalaha ah ee isku guriga ku nool ee isdhalay waxaa deggan kuwaan awowga u ahaa waxaa deggan kuwaan abtiga u ahaa waxaa deggan walaalahayo waxaan baaq dheer u leeyahay iimaanka allah idinku sugo iimaanka allah idinku sugo colaadda xumaanteeda allah idin tuso joojiya colaadda colaad wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho xumaan baa ku korodha qasaaraha iminka marayna waa og tihiin war intaa walaalayaalow aan ilaahay haynaga ekaysiyo dhibaatada intaa ilaahay dhibaatada haynaga ekaysiyo waxaanu labada dhinacba leenahay joojiya colaadda war colaadda joojiya war colaadda joojiya war iimaankiinu haydin xajiyo gaala ma tihidina muslim baa tihiin ehel weeye waxaa islaynaysaan wakhtigii aynu deriska colownay ma aha waa gudaheenni weeye waxani ragga dhintay aqalaan looga barooranayn ka hagar iyo ka hayaagba aqalaan looga barooranayn labada dhinac ma yaal qurba joogtaa dagaalka hurisa qurba joogtu nabaddana way ku filan tahay siday rasaasta u iibinayaan siday kharashka u bixinayaan siday colaadda u humayaan war ilaahay ka yaaba waad soo shaqaysateen maal xalaalaa shaqaysateen xaaraan ha ku bedelina maalkiinna xaaraantaha colaad ha ku hurinina war nabadda kaga shaqeeya maalkiina nabadda kaga shaqeeya waxaad qoriga siinaysaan buug iyo qalimo inamada u siiya agoomaha siiya danyartiinna wax ku bara dadkiinna waaniya boqolkiiba boqol waxaan aaminsanahay colaaddaa in qurbaha laga wada qurba joogtay allah ka yaaba ilaahay ka yaaba ilaahay ka yaaba dadkiinna u tura ragga wiilashiisa yurub iyo maraykan jiraanow ee isla adiga halkan wiil kuma jooga iyo naagow waxaad dilaysaa waa ninkaad qori u iibisaaba ama isagaa ku dhimanaya ama mid keliban u tagayna aakhiro oo wad ogtiin ehel male walaal male qaraabo male saaxiib male halkaasaan idiga digayaa dhammaantiin nafteeda iyo tiinaba waxaan uga digayaa naartaa in badan laynaga digay ilaahay haynaga badbaadiyo adduunkana haynagu ciseeyo marka labaad tolka qadadan iigoga shandhigay aad buu u mahadsan yahay ilaahay haydin sharfo annagana waadna sharafteen martida garaadka horgaaminayana waad sharafteen jasaakalla halka ay ka soo baxday wax ka qaba allah idigu bedelo allah idin barakeeyo garaadada ilaahay ha barakeeyo waqtigooda qaaliga ahaa inoo soo huray u dubjiraya u dhafaraya u gaajoonaya taraaga intaa leeg soo galay waxaan leeyahay horta miisaanka xasanaadka ilaahay wuu idigu darayaabe allah idigu daro aakhir iftiinkaba allah idin liibaano arrintaa aad isku soo xilqaanteen naarta aad ka badbaadinaysaan mid adduuniya mid aakhiraba aad naga badbaadinaysaana ilaahay haydiga ajiibo oo kuwa aslaax iyo wanaag iyo kalgacal iyo muwado dhex dhiga dadka walaalaha allah idiga dhigo maxamed cabdi xaashi oo darajooyin doora soo maray ilaahay waxaanu u baryaynaa oo geeriyooday in ilaahay u naxariista ehelkiisa iyo qaraabadiisiina ilaahay waxaanu uga baryaynaa in uu wax wanaagsan oo badliya
ugu bedelo waxba hebel baad hebel u soo dilayaa war waa layga bursadoo dhowr nin baa iga maqan waxba ina tari weydi waxaan roog iyo baahayna ina taraysaa ma jirtee labada daraf walaba ilaahay baanu kuu baryaynaa intaad qaadataan baryada tolkiin ducada tolkiin qaato oo labadiina darafba nabadgelyo qaato islaawa marka way isku soo kiin celinaynaa waa liisu kiin keenayaaye sidii hore ha nagula dhaqmina bil ama bil iyo 5 casho ama 2 bilood markay joogto xalay baa wax la laayay yaa ciradaan noo yeeshay oo reerkeenna dhexdeedna waxaynu shalay ka heshiinay oo markiiba la soo celinayo naga ilaaliya haajada waxaanu ka sugaynaa ismada halkan fadhiya iyo ergada quruxda badan ay wataan yaanu arintaa u daynay una xil saaray qoliyaha iyagii buu hood la joogay waxaanu doonaynaa wixii aanu la qaban karna kaalmaatiya inaanu la qabanno waxaanu doonaynaa haddii aan la yidhaahda inaanu ugu ducayno xaajada ugu ducayno inaanu isku garab taagno inaanu wixii ay gola keenaan la saxeexno markhaati ka noqonno kulligeenba maanta tolweynaha caraale mahad aadan axmed garaad cabdalle maanta na sharfay na soo dhoweeyey guryahooda ilaahay hadduu kuu roon yahay noo goglay ilaahay hadduu kuu roon yahay jazaakum allahu khayra jaza waxaan idin leenahay إلهي يدوك وروياي أفضل عدكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة الله يدين بركيو قريها إلهي يدوك قولياش الله يدين بركيو dumarka iyo duunyadaba Allah idin barakeeyo dhalaanka iyo dhashaba Allah idin barakeeyo waa ducaynay maanta oo magaalada gudaheedanu ka ducaynay waa ku rakaadanaynaa waxaanu insha Allah taala tacsitiiraan yale waxaanu tacsitiiraan yale u diyaarinayna siyaasigii weynaa madaxda muddada dheer isaga iyo aabihiiba ay u ahaayeen maxamed cabdi xaashi oo xalay ku geeriyooday magaalada Nairobi ilaahay jannatu firdawsayn ilaahay weydiinaynaa waxaanu qiraynaa oo aanu makhraati ilaahay adduunkan uga ahayn inuu nin wacan ahaa inuu daacad ahaa inuu islaam saalix ahaa yaanu qiraynaa ilaahu naxariistaada si amal laguma janno galay naxariista ilaahay baa lagu janno galay ilaahu jannadaada si naxariistaada ka siiyo kuwaad ka raali ahaato ilaahu ka yeel ta kale waa intii aanu maanta ka niri hawshan hagar iyo hayaag ee aanu nimid hawsha muggeeda iyo miisaankeeda aanu siinaynaa ilaahay hadduu kuu roon yahay gudoomiyuu wuxuu yidhi wixii walaalahood ku dhacay ha eegaan waa run waanu rabnaa inaanu geyno inay arkaan dad iyo duunyo wixii baxay waxa magaalo gubatay iyo waxa dad dhintay ee tolkood uu ka heshiiyey inay arkaan waxay isleeyihiin midhaa waxaan idin dhex maray yar kama heshiin karaysaan 200 oo nin baa dhintay dhowr magaalaa gubtay intaasoo ilaahay hadduu kuu roon yahay ee khasaaraa dhacay maantana wakaasoo walaalay ka yihiinoo baha khayr bay ka yihiinoo ilaahay hadduu kuu roon yahay waa ka wada joogaan inay ilaahay hadduu kuu roon yahay dhaawac 500 ba midhaa garaad ka badan ilaahay hadduu kuu roon yahay inay arkaan oo kuwaayi arkaan oo waxa ay ku socdaan wadada inay tahay waxa ka dambeeyana inay noqonayso khasab inay deheshiyaan wax kastoo khasaaro dhacay wax kastoo dhimasho dhaca inay noqonayso in la heshiyo marka maanta inta rag nool yahay duunyadu wali wax ka jiraan inay insha Allah taala waa ku tala jiraa isugu dayana de waa xaq aqbalaad baan iimaane dadaalkooda waa sameeyeen iyana jazaakum Allahu khayra jazaa waxa la qofka islaamkii ma khaldamo
hadduu dadaalo oo khaldamana ajar buu leeyahay hadduu dadaalo oo saxmana laba ajarood buu leeyahay marka kuwii labada ajarood annana ilaahay ha naga yeelo iyagana ajarkooda allaha siiyo ilaahay saasaan ka baryaynaa ilaahayna waxaan ka baryaynaa colaadaasi colaad soo afjaranta inay noqoto oo walaalaha ayaan dib isugu noqon ilaahay saasaanu ka baryaynaa inayn qaylo dambe dhexdooda ka yeedhin in ilaahay beerkooda burcad isu mariyo in ilaahay intay dadka waa iska jeclaayeen jacaylkoodii wada dhalashadoodii walaaltinimadooda ay u soo noqoto ilaahay saasaan ka baryaynaa mar labaad iyo mar saddexaad magaaladan Dhilaalo ilaahay ha barakeeyo dadkeeda iyo dunyadeeda iyo deegaankeeda Allah ha barakeeyo ganacsiga Allah u barakeeyo oo xoolaha Allah u barakeeyo oo biyaha Allah u barakeeyo oo ilaahay saasaynu ka baryaynaa ilaahay masiibooyinka dhacaya ha ka ilaaliyo xanuuno waaweyn baa jiro dawladihii adduunka ilaahay jilbaha dhulka ugu dhigay ilaahay ka ilaaliyo ilaahay ka ilaaliyo carra dhul baahantoo dhan Allah ka ilaaliyo carra Soomaaliyeed Allah ka ilaaliyo islaamka intii dhibka qabta Allah ka dulqaado ilaahay